waxaa leeylo iyo xiye cabkunoora dhowr sano iska xanuunsanaa 7 sano wax caawinad iyo tabarucaad midna maani isbitaalka Baraandira martigay marna martiiniya liigay waxba ka ma qabo karna dibadda waxaa leeyahay intaada la xiriir dibadda loo xasaasay waa qof iska dhawaataysan oo cayaal ah heesta. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Halka naga daawanaysan oo naga arkaysan waa golaha wadani official galabta waxaan joognaa kaamamka magaalada Muqdisho kaam kamid ah oo ku yaalo xaafada iga dabageed waxaan soo booqnay aan u nimaanay maamo oo xanuunsan muddo badan xanuunkeeda ee la jirto meeshaan waxaan ku suganahay kaamka Doogle xaafada iga dabageed waxaan soo booqnay aan u imaanay maamo Soomaaliyeed oo xanuunsan oo xanuunkeeda in badan ee la jiftay meeshaan ay ku nooshahay maanta soo booqnay wixii warbixin ayada idin sheegi doonta Ilaahay qor hadal maamo ku sheeg. Bismillah anoo ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan tabeelaha oo ka tirsan Dabageed kaamka Doogle ciideedina waxay u yiraan cayaalkii dadkoodiisii waa jirtay anna ilmeyga dadkooda inaa sii dhibaato ay la noqotay sax ilmeyga hadda waxa iska waxay ilmaha uu soo wareejiyay dadka ilmaha dhalay waa jirtay ilmeyna wareejin dhib ay la noqotay ilmeygin waa wax iska yar oo aan shaqeyno gacantooda waxay qaban oo soo shaqeey kar waa jirtay qof iska dhawaataysan oo alle rasuul u baahan oo iska xanuunsan guriyada ay gudumiyay waxa ku dhistamaysta waa jirtay gurigaana deganahay waa jirtay Google hada markaas ay malahan ilmaha hooy oo markaas ay lagu waxyeeshto sax ma haysano waa jirtay gooshi waa dhamaatay qofta 7 sano xanuunsan Google oo lumayso 7 sano xanuunka la jirtay 7 sano xanuunsan waa jirtay hadda guri dad walaal leeyahay habeenkii cayaalkooda roob yimaadaan gurigaas jawno roobkaas iska dhex jooga oo hadda qof socon karta ma waa gartay ummadda Soomaaliyeed ah ku daawanayso maxalada maxaa ka codsanay ummadda walaalahay waxa ka codsaha dalkii joogay dibadda joogay inay caawiyaan haday naqato dibadda iyo haday naqato Soomaali wixii daawo ay wixii cunno ay wixii markaas ay daryeel hooy akooyda dama haysto 7 sano oo kaamila maamadan xanuunkaas ay la jiftaa ee idin sheegayso magaciisa la haystaa haystaa shan ciyaal ku joogto abooda waa kala tag aboodan waa kala tagtay ilmeysi iyo ilmana sii kale waa gartay shan ciyaal haysta maamadan waxay ku nooshahay meeshaan aw jeedin laakiin xanuun hadda oo waxa waaye oo Ilaahay min Allah Ilaahay xaqiisa keen sax walaalahay Soomaaliyeed dhaqaatiir waa tagay dibadda moodalka wax laga ma qaban karaan xaaladda inta dujeedin waa qofkii markaas ay college oo jir daqahay la way jeedaan ciideedin waxay ilmihiina dhiibana dhaway la noqotay kama teey karo ku daaweeyna haliin anaga dalay dibad ku qaadeen dadkii ilmaha dhalan waxay yiraan walaalo ilmaha in nasi ilmahayna dhibay u tahay xaaladaas ku noolahay laga yaabo hadda guriga ku shir xaaraan in nijaas u geeyo marna wiilkaas gadoomiyaha dadkaas dhaxgala wax noo soo waxyeelo xooga wax noo soo caawiyo kaamka adeegana wiilka gadoomiyaha marna hal door marna nus door maskiilad bariiska iyo xasaas ilmaha uu keen waa gartay marna waa la qadaa waa la iska seexda xaaladaas ku suganahay qof istaaga karto aad musqash gaarteen ma sax xaaladii waa iska leedataa waa gartay gargaar bina aadnimo walaalahay Soomaaliyeed waxa ka codsaha wixii markaas ay ka awoodaan inay u soo caawiyaan haday naqato dhakhtar haday naqato cunno haday naqato hoy haday naqad gobol lagu jiifto dama haysano magacaaga saddexan iyo teleefankaaga ummadan Soomaaliyeed u sheeg aniga waxaa leeylo iyo xiye Cabdullaah la yiraahdaa bismillah teleefankaygana waxa waaye furaha 7 eber 3972 tartiib adoo degan lambarkaaga u sheeg bismillah marxay magacayga leeylo iyo Cabdullaah nambarkeena 7 eber 3972 maamadaas Soomaaliyeed maamada lambarkaas ay wadataa shan ciyaal u joogto qof ay maanta ay wax ay ku haysata malahan kaamkaana ku nooshahay xitaa golashi lagu jiifanayo xitaa ma haystay dhahday
qof walba Soomaaliyeed oo damqanayo waxaan ka codsanaynaa maamadan inay soo caawiyaan dalidood meel walba ay joogaan maxaa kale ka codsanayo maam waxaa ka ilaahay caafimaad ha isiiyo ma ii soo duceeyo maamada inuu ilaahay caafimaad istaaga kartiin iyo soo garab istaaga inuu ilaahay maamadan caafimaad badan siiyo u soo duceeya wax kasta oo ku caawin kartiina lambarka idin sheegto waaye ku soo caawiyo insha Allah waa kana soo gal gurigeed waa u jeedin meeshan waxba ma yaalaan meesha maamada ay ku nooshahay waaye qolkaan waaye waxa lagu jiifta ma leh ilmaha meeshan ay iska jiiftaan la dhahay wax ay ku jiiftaan ma haystaan golashi lagu jiifana ma haystaan marka walaalayaal waxa waaye Soomaalina isjecesha oo iska nixis waa ognahay qolkeeda kalena waa kana waa u jeedin qolkalena waa u jeedin waa kana meeshan wax lagu jiifta ma leh